When I decided I wanted to embrace myself, it waxaa wasn't jira on the dad single bedelo day, qaabka It has been wejigooda a journey. qaar ayaa dildilaaciya carabkooda halka qaarna ay isku ekeysiyaan xayawaan oo kale iyagoo dhibaatadaas oo dhan u maraya keliya si ay ugu ekaadaan qof gooni ah oo ka duwan dadka kale balse waxaa jira dad aanan u baahnayn midaas oo ku dhashay ka duwanaanshaha dadka kale sida gabadha aan ka hadli doono oo kale Farax Khaliiq waa gabar ka soo jeeda dalka Kenya gabadhan waxa ay ku dhalatay iyadoo caafimaad qabta oo aan dadka kale waxba ka duwanayn balse tan la yaab ka dhalisay ayaa ah in marka ay jirtay da'da 29 sano oo ku dhacay cudurka scleroderma cybertomis oo ah cudur naadir ah oo sababa in maqaarka jirka uu qalalo isagoo nuqda cadaan iyo madow sidoo kale nabro iyo in ay gacmaha laablaabmaan It has been a journey. Slowly, I would look into the mirror. That was then the time I would be like, yes, girl, this is you and you're amazing. Farax ayaa sheegtay in markii hore ay dhibsan jirtay in xitaa ay isku egto miyaaradda maadaama ay isku haysatay in ay tahay qof fool xun balse markii dambe ay jeclaatay wajigeeda iyo inay tahay gabar qurux badan sidoo kale waxay bilowday ku dhaqanka diinta islaamka iyo qaadashada xijaabka taas oo ka dhigtay inay ku qanacdo qofka ay tahay